magaalada Ari Cadeeye ee gobolka Sool oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga aadan magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ayaa uu maanta ka furmay shirweyne ay yeelan doonto mid kamid ah beelaha deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay furitaanka shirkaasi isimo wax garad cuqaal ganacsato salaadiin garaado madaxda gobolka Sool iyo marti sharaf kale oo lagu cusmay furitaanka shirkaasi ugu horeyntii waxa shirka furay Sheekh Beledka gobolka Sool Sheekh Cabdinaasir Xaaji Ahmed isagoo sheekhu kula dardaarmay in shirka gundig looga dhigo cabsida alle dadkan shirka qabsaday danahooda iyo danaca xalada ka shaqeeya ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu danahooda iyo hawlahooda wanaagsan ay doonayaan alla hagaajiyo si wanaagsan loogu dhammaystiro ayaan uga baryaynaa madaxda dhaqameedka ay la soo bixi doonaan waxaan rajeynaa inuu noqdo mid wanaagsan oo beesha khayr u soo jiida ummadana isku habeeyo isku hagaajiya oo khayrka oo khayrka ku qariya inuu ilaahay ka soo dhaxsaaro baan ilaahay ka baryaynaa ayadaha quraanka kadib waxa ajandaha shirweynaha ka hadlay gudoomiyaha guddidan qaabada shirkaasi Yuusuf Jaamac Ciise inaan ku caawino waxyaalaha anaga dhexdeeda dadaalka sawirka wasoo go'ay inaan ku hagaagsano oo muhiimada ku xidhan inaan dhammaystirno waxyaalaha iyaga u baahan dadka kasta la dhexmaray inaan ku doorano isim aan isleenahay waxaan ku xidhnaa dadka iyo dadka ka qabanno horumarinta dalka iyo dadka inaanu khilaafaha iyo midnimo bulshini yani marka xigta beeraha waa ay dariskayga ah wixii rajayadii la xiray ka dhiman inaan ku dhamaysto marti sharaftii lagu casuumay shirka ayaa uga mahad celiyay shirweynahan ay ayahooda kaga tashanayaan beeshani ayna ku tilmaameen mid ku dayasho mudan ayadaha muhiimka waa ku baaqday midnimada iyo horumarinta gobolka iyo nabadaynta inay ka qayb qaataan aad iyo aad baan u taageersanahay waan soo dhoweynaynaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ganacsatada arrimaha faraha badan ee beesha soo jeedisay runtii oo ah wax aad u qiimo badan oo ah in aan ugu haliyeeyo in aanu isla garab taagno in aanu kala mid noqonno ayaanu runtii ku faraxsannahay de waxaan onayaa waxaa sugan maanta beeshu halkan iimaan bay ku dooranaysaa laakiin garaadada sifay la gelaysaa subxaana allahi waxaa sugan garaadada qolada kale waxaa isaga daynayaan iyagu iimaan qolada bardood waxaa la yidhi gaabxaya waxaa la yidhi iimaan cabdiwahaab baan iimaan qaatay waxaan sirwarniyo waxaan onayaa qolyaha iyaga iimaan baqoda ka maqnay qoladana iimaan ku tilmaamaya de hadda waxaan islaa war iimaan bay dooranayaan laakiin hadda garaadada sifka soo gashaan qolakana culimadooda xisaabana hormaranayaa oday ugu weyn oo matalaya beesha hadeer waxa weeye wixii aan ugu soo talagalay anigu ra'yi ahaan inay reerkaasi ku doortaan isla markaana ay waxa weeyaan ka dhigtaan insha allahu tacaala meesha ay ku doonanayaan ninka ay rabaan inay caleemo saaraan allahu akbar waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca aqoon-yahanada magaca ganacsatada iyo magaca qurbajoogta beesha reerkushiin waa waqtigii inugu qabnaa taariikhdayda waxaa kaloo ii soo baxay mahmaadii odhanaysay kullu shay yarjuucu ilaa aslihi inaan qarni kadib u soo noqdo gobolka Sool farxad weyn iyo hambalyeedii tahay hadalkooda oran maayo waxaan isleeyahay madashada waxay kaga duwan tahay kuwa kale malaha waxay maanta u egtahay in wax lagu dooranayo laakiin waxay kaga duwan tahay kuwa qabaayilka waan isleeyahay waa markii ugu horreysaan isleeyahay madal lagu xiranayo isim ama suldaan ama gobolka ha ahaadee dadka kale walba laga soo qaybgeliyo culimadii iyo mas-uuliyiintii iyo cid walba ka soo qayb gasho si ay talo iyo fikir uga yeeshaan iswaraysi iyo isxormareysina ay u noqoto uguna duceeyaan baan isleeyahay way kaga duwanta waxay kaloo kaga duwanaan doontaa marka la isla qaatana sidoo kalena uga soo qayb galaan marka kale caleemasaarkana iyaduna ay markii saddexaad noqoto barasaabka gobolka Sool Yaasiin Maxamed Shide ayaa isna dhankiisa sheegay sida wanaagsan ay beeshan u qabsatay shirkooda kulankan shirka quruxda badan ee ay kaga tashanayaan masiirkooda aad baan idinku baarinaynaa
waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadweynaha kala duwan ama ardaayada culimada codkarka cubaasha dhammaan dadka ka soo qeyb galay shirkan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay inay beeshan yeelato hoggaan ilaahay nooga baryey inuu ka dhigo mid caadila oo shareecada islaamka wax ku xukuma waxaan u doonayaa maanta maalin taariikhi weyn beeshaynu joogno waa la cadeeyey beesha muslimiin horaan u sheegay hawshan iskugu timaya calaamasaarka ay ku sheegeen 4 qodob aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa anigoo ku hadlayna afkii salaadiinta soomaaliyeed iyo salaadiinta deegaankaba shirweynahan oo ahaa mid si heersara loo soo agaasimay ayaa ku soo dhammaaday jawi degan waxaana la filayaa in maalmaha soo socda lagu doorto isinkii hogaamin lahaa beeshani mukhtaar cabdi jaamac SBC TV magaalada Laascaanood.